wasiirka xanaanada xoolaha Soomaaliland Cabdilaahi Maxamed Daahir Cukusi oo uu rameeyay telefishinka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa tilmaam ka bixiyay qorshayaasha taabagalka noqday ee xukuumadda Soomaaliland ay wado ee dib loogu furayo dhoofka xoolaha Soomaaliland oo xayirnaa hay'adaha jira caalamiga hay'adahaasi iyo aybar hay'ad kale oo ay la yiraahdo waxay sameeyaan monitoring bay ku sameeyaan ama waxay la socdaan xogta caafimaadka xoolaha dunida oo dhan marka bilbil ayay ula socdeen xoolaheena caafimaadkiisa annagu marka waxaan weydiisanay inay noo soo xaqiijiyaan caafimaadka xoolaheena way xaqiijiyeen markhaati furkiina way noo soo direen oo waxay noo soo xaqiijiyeen inay maraka yihiin in xoolaheena caafimaad qabaan waxaa jira dadaal kale oo aan ku jirno oo ah in shirar la qabto shirarkaasi ayaanu filaynaa inay guusha kama dambaysta ka soo bixi doonto shir Uganda mar dhawaanu tagayno oo hay'ado badan oo FAO iyo aybar iyo ururo kale oo caalami oo fara badan ay imanayaan marka ururadaasi ayaan doonaynaa inaan shirkaasi ay nagala qayb qaataan xoojinta shir lagu qaban doono Imaaraadka marka dambe oo dawladaha aynu xoolaha u dhoofino dhamina ay ka soo qayb galayaan in ay markhaati furkaasi inagoo markhaatigeeyagii wadana inaanu shirka tagno wasiir Cabdilaahi Cukusi waxa uu dul istaagay saldhigga military ee magaalada Berbera oo ay ka hadleen xisbiga mucaaridka ah ee wadani waxaan dhageysanayay ninka Dr. Fadal la yiraahdo saaxiibnahay oo xogayaa arrimaha dibadda ee xisbiga wadaniga aad baan arrintaasi u diiday waxa weeye saldhig military inaynu bixino oo aynu sida dawladda Djibouti ma sha Allah dawladda Djibouti maanta inta soo saldhig military oo dawladeed ba ku yaala faa'iido ay ku qabaan mooyana khasaarana kuma qabaan faa'iido ay ku qabaan mooyana khasaarana kuma qabaan maxay noo diidayeen inaguna abaal baynu ku qabnaa oo waxaynu ilaahay maalin walba yaboosanaa baryeena in layna aqoonsado in ay dalkeena ciiduna timaado oo ay aqoonsigaasi ilaahay inoogu ilhaamiyo oo ay dabeetare inoo yimaadaan oo maxay inagu soo kordhinayaan way inala degayaan oo dalkay maal gashanayaan way inala degayaan oo wadooyinka iyo shaqo la'aanta iyo dhaqaalaha iyo waxbeerashada iyo kalluun la soo bixidda iyo baatrool soo saaridda nagala qayb qaadanayaan oo amnigeena way nagala shaqaynayaan inagu halkaasi marka ay joogaan ee ay dawladda Imaaraadku timaado alxamdulilaahi rabbil caalamiin billan dawaa'ilka kale dunida iyagana miinaan meel u helaynin maxaa dalkeena lala buuqayaa marka aynu cid heshiis la galaba ee loo oranayaa waxba yeynaan la gelin heshiis iyadoo la garanayo faa'iidada laga helayo waxa dawladani ku guuleysatay in la inaamilo oo baatroolkii la maal gashado oo cidi xoolay nagu aaminto waxay dawladani ku guuleysatay in DP World ay iyadana aynu heshiis la gallo oo maanta rajadeeda la wada dareemayo guusha ay leedahay waxay dawladani la geli kartaa heshiis oo ay la geli kartaa mid dhaqaale iyo mid wadada Berbera iyo Ethiopia dal aynu wax ka ganacsano Ethiopia ayaa inoogu fara badan dalla waxay inoogu fara badan ka Saudi Arabia xoolaha u dirno alaabta kalena waxaynu jecelahay inaynu halka 100 milyan 70 milyan Ethiopianka aynu wax ka iibino soo uma baahnin wadooyinka cid inoo dhista soo uma baahnin garoomada cid inoo balaarisa soo uma baahnin dekedaha cid inoo hagaajisa war anu waxaan la yaabanay xisbiga mucaaradka ah ee wadani doorashadii wax yar baaba kaalay oo hadii dekeda Berbera oo arrinkeedu ma sha Allah yahay tartanka la galo mii ka raja dhigeen inay nimcada iyagu xukumi doonaan mise waxay ka tahay yaan xaggan midnaba loo cirsanin dadka iyo dalkuba hay isku basbeelaan cid inoo timaado ma ogolin wasiirka xanaanada xoolaha Soomaaliland waxa kale uu sharaxaad ka bixiyay waxyaabaha uu Soomaaliland u suurtageliyay safiirka Soomaaliland u fadhiya dalka isku taga Imaaraadka Carabta Baasha Cawil waan maqlay qaar xaganayo safiirka jooga Imaaraadkana xaganayo 25 ka sanadoodba Soomaaliland safiirey
Somaliland safiir lahayd dalku doonaba ha joogay warsoon maaha safiirka kaliya ee ku guuleystay bal cala aqal cidina baayacday inuu keeno cala aqal cidina la soo degtay inuu keeno ilaa safiir shaqadaynu u dirnay tanayayda cid maal gashatay inuu keeno cid dalkan uu gurayso inuu macdan leeyahay inay ogaatay in kale isku dayday inuu keeno safiirkaasi inaga wuxuu inaga mudan yahay inaynu ku ammaano maaha inaynu ku aflagaad